بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى هانتي الميل قستا جوجتان سكستا بانو مقليسان كسر دبادا جنرالك إنجنير محمد إبراهيم عمر جنرالك هو جنرال عصب دي وياه مركب كوات دعوة جنرال كان فضلا سبسكرايب شير لايك انتو بردقنا وسي سيئات وهشو عشرة تنسيو فربضا تاني جنرال كان مدو ير أيو جاب كجري ما أنتو يدبو صون نقضي janalku wuxuu ardayda u suurtageliyaa inay ka faa'iideystaan maadada Englishka si uu ugu soo saaro arday tayo leh kana faa'iideysta waxyaabaha uu soo bixi ama casharada ama lessonska uu soo deeyo janalkan arday fara badan ayaa alxamdulillah ka faa'iideystay casharadiisa sanadii la soo dhaafay imtixaankana meel fiican ka keenay meel fiican ka gaareen natiijo fiican ka keensadeen janalka markasta wuxuu ardayda awood u siiyaa si ay ku dadaali lahaayeen ama si ay ku practice lahaayeen casharada qaasatan maadada Englishka sidoo kale janalkan wuxuu ardayda kale ku dhiirigeliyaa inay ka faa'iideystaan ama macna ku dadaalaan maadooyin kale sida scientifiga iyo maadooyin kaleba janalkan uu ku duwan yahay janalada kale janalkan wuxuu janalada kale ugu duwan yahay waxay tahay waa janal wata magaca education ma ahan detail واتسان أغنهاي أم سان وذ أغنهاي educationku meel dhexmanaga yaalo meel siro naga yaala maanta waxbarashada agaarihiina ku hareersan tahay hadii aan lahayd youtuberada maxaa la baliisyada maxaa la iskuulaadka maxaa la meelaha kale waxaa jiro janaalo fara badan oo soo saara barnaamijyo kala duwan balse waxa ugu fiican janaalada soo saara educationka educationka waxa education is the key of the life waa furaha nolosha waaye marka asxaabta mis ardayda janalka wuxuu markasto ku baraarujiyaa si ay ku faa'iideysan lahayn ama waqti ku bixi lahayn ama juhdi ku bixi lahayn janaalada soo daaya maadooyinka educationka maadooyinka scientific iyo maadooyinka qaasatan maadadan janalka u bixiyo Englishka janalkan wuxuu janal kale u duwan waxay tahay casharada u bixi waa tusay taabsiye waan wax easy way ku fahmi karto maadadan maadadan wayna fududa wayna adag tahay waxay ku adag tahay ardayda aan daneynin ama aan practiceeynin waxaan u fududahay ardayda simply always ama sometimes markastana dadaala practiceeya ku celceliya wixii janalku soo saaro maanta waxaan rabnaa ama noo saaran maxalla slide-ka other examples waxaan ka soo hadalnay markaynu isku dambeysay tenniska toddobaad ee lagu magacaabo past perfect tennis wuxuu ka hadlaa fal dhacay oo ka hadlaa waana past waaye waan soo qeexnay wuxuu ka hadlaa waan soo sheegnay example qaar hadda waxaan rabnaa other examples inaan siino ila tenniska markii lagu guda jiro waxaan jiro waxyaabo fara badan oo loo isticmaalo before and after ajro tenniska waxaa la isticmaalaa before and after marka other examples aan ku soo qaaday waxay tahay goorme after la isticmaalaa goorme before la isticmaalaa taasaan marka waxaan u dhaanay other examples aan u dhaanay marka saad before goorma la isticmaalaa after goorma la isticmaalaa okay waxaan ku baran doonaa slide-ka ku arki doonaa okay she had finished the work before you come to me alle saad marka before isticmaalaysid tenniska ama tenniska alla hor waxa isticmaalaysaa tenniska toddobaad oo isticmaalay hala before ka dambeysna waxa isticmaalay tenniska saddexaad oo isticmaalay past simple past tennis oo isticmaalay waxa ku saad allaha tenniska ugu horeeya waxa isticmaalaysaa tenniska toddobaad past perfect tennis oo isticmaalay hala dambena waxa isticmaalaysaa simple past law tennis isku jiro saad tennis koowaad waxa isticmaalaysaa qaybta hore waxa isticmaalaysaa ku dhahay tenniska toddobaad ama past perfect tennis hala dambena waxa isticmaalaysaa tenniska saddexaad oo simple past tennis before what she had finished the work before you come to me she had finished wada meesha the work shaqada baliyiri before kahor you come to me kahor intaanan iimaanin iyadoo shaqada wada meesha baliyiri no she had finished wada meesha the work shaqada before kahor you come to me intaanan iimaanin kintas maxaa waa past marka past yaadeenaysa marka okay su'aalka dhig marka waxaan la bixin had bis macna qonaysa has she finished the work before you came to me miyay iimaatay iyadu kahor intaan adiga iimaan Allah had she finished the work before you come to me okay did magrig she had not finished the work before you come to me question negative hadn't she finished the work before you come to me he had spoken to me before I spoke to him alright he had spoken to me oo ila hadlay isaga buu yiri
before kahor I spoke to him kahor intaan isaga la hadlin isaga baa ila hadla baa la yiri what had I taken before you took what had I taken maxaan qaatay baa la yiri what maxaa had I taken an qaatay before you took kahor intaan qaan ani maxaan qaatay okay teniskan auxiliary wuxuu ku shaqeeyaa had ku shaqeeyaa dhammaan all subjects all pronouns ka dhammaan iyo nouns ka ba had wala qaataan she had Aisha had I had he had كل ما هو had وبس auxiliaries subject plus had plus verb be plus object بالي اوكي marka maanta barnaamijkeena ama cashirkeena halaasa ku soo qaadanayna halaas ku ogyahay channelkana waxa waaye waxa soo koray maxaa la yiraahdaa gaabi fara badan ardayna markasta channelkan wuxuu leeyahay waa ku maasantiin maanta channelku wuxuu gaarsiisan yahay saan soo sheegnayba ama saan markasta sheegna meel dhexe maraya channelku wiil wuxuu raadinayaa meel aad u sareysa meeshasna waxa gaarsiin kara ardayda ku xiran iyo asxaabta ku xiran channelkani markasta waan sheegnaa Simbir waxaan dhahnaa waxa la raadiyaa channelada education soo saara ayaa waqti juhdi lagu bixiyaa kuwaas wax kaga faa'iideysan kartaa marka channelkani channelada kale oo ku duwan yahay Simbir wuxuu soo deeyaa ardaydu maadooyin ama maadadan Englishka wuxuu soo deeyaa si uu faa'iideystaan tense hadii ahaa tense hadii aan lahayd conversation hadii aan lahayd casharo iyo hadii aan lahayd words iyo hadii aan lahayd maxaa la proverbs maamaayo marka asxaabta channelkani marka saas oo saaciida idinkana waxaan iga baahan yahay channelku wuxuu iga baahan yahay inaad soo saartaan channelku wuxuu iga baahan yahay maanta wuxuu marayaa meel dhexe maraya wuxuu rabaa meel sare inuu tago channelku channel fara badan ayuu la tartamayaa wuxuu rabaa channeladaasi wixii qaada inuu la qaado marka idinkaana kor noo qaadi kara idinkaana hoos noo dhigi kara marka asxaabta mar labaad iyo mar saddex iyo mar afraad waxaan ila leeyahay channelku meesha rab hala gaarsiiyo channelka kor ha loo qaado waad ku mahadsantihiin assalaamu calaykum